2020 iyo 10 sano oo hor lehba waxay bilowdeen اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء iyadoo dhalinyaradan dhamaadka isbuuc walba ay u duceeyaan هذا البلد آمنا dalka iyo dadka Soomaaliyeed. وسائر بلاد المسلمين waa kulankoodii afaraad. Jimco walba waxay kalaamka alla wada jir ugu aqriyaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. ujeedkuna waa in Rabbi dalkeena baalmariyo masiibooyinka dadka Soomaaliyeedna ay helaan nabad iyo barwaaqo. alla bari iyo quraan akhrin ayay doorbideen in xalka Soomaaliya ay ku raadiyaan. dhalinyaradan waxa kale oo ay rajeynayaan in kulamada noocan oo kale ah ee quraan akhrinta ay gaarsiiyaan dhammaanba degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolada Soomaaliya. mid kasta oo ka mid ah dhalinyaradan waxa uu si niyad ah u mariyay mid ka mid ah 30 juz ee Quraanka Kariimka. kitaabka quraanka oo la akhriyo walaalayaal waxaa ku imaanayso sakiina wa ghashiyatuhum arrahma wa xafadatuhum almalaa'ika. walaalayaal kitaabka quraanka waa kitaab dhammaystiran soo ilaahay quraankiisa ku leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaam diina. سأقولنا محاج فائدة لهذا إن قرآن الآخريو محاج فائدة لهذا إن الإسكوي ماذا أو ذلك له دعاء دعاء أيضا قرآن وبدن يا حديث بدنا كالين في سورة البقرة القرآن كيسوع كله هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هديك ويدي النبي الله أدومن كيغا تيجوغان فإني قريب أجيب وإيدويهين أو مرول الله سبحانه وتعالى أدومديسا إيو لو مردحيو الله سبحانه وتعالى دعاء مركا دعيسة إلهي بريديت ولا ليال الله سبحانه وتعالى وأقبلها حلو يريا بدك القرآن dadka ma ku dhex tarsoomaya gooni u istaagaya waqtiga oo ahaa casirliiq waxa aad caadi ifinaysay maalinta oo jimco ahayd ay dhacday iyadoo qof walba halkan ku sugan uu ku duceysanayay in Soomaaliya ay mar kale dib u kabato. barnaamijkan runtii waxa la rabaa dalka Soomaaliya oo dhan inuu wada gaaro ilaa iyo gobolada dalka 17 degmana runtii dhammaan waa la wada geyn doonaa. ujeedadiisana waxay tahay in dalkan dhibaatada haysato in Ilaahay ka dulqaado. hadda ilaa 4 degmo ay maraysaa degmadii afraad ayaa maanta la joogaa jimcaha soo socotana degmo kale la tagi doona ilaa 17 degmo laga tago soconaya. dhalinyarada gobolada jirtan waxaan ugu baaqaynaa ayagana inay barnaamijkan u soo baxaan isku abaabulaan dalkan ay u duceeyaan. qaraxyada dalka ka dhaca oo wali socda musiibooyinka dabiiciga ah oo ay abaaraha iyo fatahaadaha ka mid yihiin oo soo noqnoqday iyo dawlad Soomaaliyeed oo maareysa intaas oo dhan oo aan dalka ka dhalan 30 sano. kulankan waxa dhalinyaradan ay ku qaadaysaa in rabbigood ay weydiistaan maslaxad degdeg ah. Aweys Maxamuud Jilcoon, Cable TV, Muqdisho.